gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudin Injineer Faysal Cali Waraabe oo ku sugan dalka Colombia oo kaga qayb galay halkaasi shir caalami ah ayaanu khadka telefoonka ku wareysanay isaga oo jooga dalkaasi ugu horreynaa su'aashii ugu horreysay ee aan weydiiyay ayaa waxay sida tan shirkan waxa weeye shirkii amba kongareeska shirweynihii 25aad ee ururada social democrats ayla ku boobay ururkaas ilaa waxa ku jira 160 xisbiga ku jira marka shantii sano buu dhacaa kongareesku waxa lagu doortaa madaxda hoggaanka ururka lagu doortaa mar waxa madaxweyne ka ahaan jiray ninka UN fadhiya bitaari ka ahaan jiray imakana George Bush baa ka ah ra'iisul wasaare Greek ahaan jiray marka waxa laga hadlaana koob xaaladaha adduunka taagan iyo sidii loo xoojin lahaa mabda'an magaran socialismka ah inaan dadku kala wax lahaanshaha dadku aan kala fogaan midbada ummaha iyo nabadgelyada iyo security-ga oo nabadgelyada ah ayaa laga hadlaa oo principles-ka magaranaysa ay ku taagan yihiin ururada asxaabta mabda'oodii social democratic iminka waxaad joogtaan marar badan baad ka qayb gasheen shirka noocana iminka Colombia aad ku sugantiin Colombia wuxuu ahaa wadan dagaalo sokeeye ka jireen muddo dheer intii aad joogteen bal maxaad xaaladda Colombia bal maxaad warbixin guud naga siin kartaa dadku bilaabay qurux badan oo adduunka saameeyay revolution-kii gabaale ما كنت سنة يا أقول كفرق لا فرق حاجة بريح والدجالمي بدحوينا هذا سانتوس وهو هانجري وسك الدفاع ولا الدجالمي شيء أي عركينا نقول بحالهن نبض كل واحد ولا هذا الأفري هل كان سوات اللي وسيء بلد نبتجي نبض براس يسنبض براس لسيء marka dadku hadda waxa la doonayaa si loo implementin lahaa ka shaqeynayaan heshiiska oo qurux badan oo ilaa 50 milyan ah dad madow boqortooyada dadka ku madow ku soo jeeda weeye boqorka saddex waa Indians indigenous dadka kala yimi waa Spanish dadka ka soo guuray Spanish adeeg European-kii kala weeye marka wafku waa Spanish wadad aad u qabow waa islaam dadka masaakiinta ee inta badan leh sida loo soo dhaxbaxeen drug cartels ka ismale dadkan iyo dadka soo baxay wadad aad dadka u soo dhaweeyay hospitality fiican waa si wanaagsan gudoomiye Faysal aad baad u mahadsan tahay intii imika aad Somaliland aad ka soo maqnayd waxa jira arrin aad iyo aad imika loogu murusan yahay oo ku saabsan arrintan berbera iyo saldhigga military ee dawladda Imaaraadka wadiga ogaayo baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay hase ahaatee arrintaasi muran baa ka taagan maalinnimadii Khamiistii halkan London waxa ka dhacay mudaharaad adiguna arrinta xogogaal baad u tahay bal aragtidaada ku wajahan iyo xogogaalnimadaada bal warbixin naga sii وصلنا سيدنا إنه وحي لقاضي بين كمرنا سلبيات شيء ساحل كواحد كمرنا وحي كست دولة استرها سنة يسألوا على السومرية وقت بنكي إن بيو كصابحين بنك القول عبيد دلاتي كتير أورجانسا والله كمرنا بيو إنفسمنت كين والله كمرنا وشدي سيبرك والله كمرنا soo saarka shidaalka waa lagu muransadaa xaaladdeena way ka bixiyay waliba isbeeshin imaka intii wuxuu suulan wadani soo baxay waxaan moodaa in soo noqotay arrintii hore aan uga gudubnay ku jiqsiis lahayd ayaan dadku dhaqaale inta uu qaadanaysay ahayd dadku yaan wax cunin ahayd inta adu samaysay dalka yaan xoreyn ahayd markii dibadda la joogay inta heer taagay uu gudoomiye ka yahay وطلع نسيب در انت سؤال دوك وحكا دعا سلبي قبالة بحياة
jabuuti uga samaysay eritrea uga samaysay hareerada marka elegtid soomaaliya aragtay ciidamada yaalla waddanka soo dejiisa isagaa ka shaqaysta ma dawladda ka wakiila anuu garan maayo dadkani intii adduunku jira xay ku maqnaaqeen waxaad moodaa dad aan adduunkiiba ka xidhan iyagu hebelba wax cunayaan hebelba wax qaatay hebel adduunku hebel maaha adduunku waa siyaasad waa program waa istaraatiiji waa issue inaga wixii kasta waa la shaqeynay ha gudoomiye arrintan saldhigga markaad eegto waxaad moodaa dadku inay dareen gaara ka qabaan xukuumadduna inaanay dadka si fiican aanay uga jaahil saarin laakiin sas baad moodaa inuu yara jiro mucaaradku saskaa way qabaan waana takaliftay inay iminka markii ugu horreeyey mudaharaad ka dhana somaliland wataa keentay inaynu dad aan nagu lahayn shaqaale empower gareeno dowlad aan jirin oo soomaaliya empower gareeno waxaan innagaa isku geysanayna dad u jeeda qabiil wax u arkaya aragti qabiille shakhsi naceeb leh yani wax aad waddan lagu wadi kara maa waxan dowladdana waa dowlad ayaa wax badan xagga ka imanaysaa waxa weye dowladdeena iyo mowqifkeeda caddaysaa dowladnimadeeda adkaysaa sharciga socodsiisaa kala dambaynta iyo kala ismaqalka xoojisaa habar kasta intaa ka soo fadhiistaa caytamisa oo shakhsi ahaan dadka u caaya oo qabiil ahaan la isku caaya yeeshi meesha waxa weeye dad dowlad u jeeda maaha dadkani waa dad hoggaan adag u baahan saldhigana hore u jiri jiray hareeraha adduunkooda security badda cas baynu ku noolahay nabadgelyadooda dad badan bay saamaysaa inoo qura maahane tiriirka adduunka boqolkiiba 80 baa mara dad wadamadaas waxay dantooda ilaashanayaan dantoona waa danteenaa wey adduunku waa xulufo haddaynu maanta waddan helay muslina oo saldhig ay ka ilaaliyaan badda cas viruses ka ilaaliyaan extremism ka ilaaliyaan kharbudaadka ka ilaaliyaan ay inaga dhigteen maxaynu ina yeelaysaa faa'iida inoo tahay ictiraaf baynu doonaynaa shaqaynu doonaynaa adduunkooda inoo soo jeesaan doonaynaa investment baan doonaynaa waa waddan baa inala saaxiibay muslina oo dekadiina inoo dhisay hafbilyan gelinaya boosaaso maanta intaa helaheed hadday ogtiin maanta helaheed kismaayo hadday maanta intaa helaheed midna kismaayayaa jooga kiinayaa fadhida lagama hadlo balidogayaa fadhiya maraykan baa fadhiya boosaasiyaa fadhiya imaanaadka fadhiya saldhig imaanaadka bariska ka ilaaliyaa jooga oo tababaro helictobris baa jooga innaga waa heer waa si inantii hadlaysa laheed baashe iyo maxamuud xaashi iyo waxa shakhsiyaad baa lagu meelaysanaya qaran baa laga hadlaya issues baa laga hadlaya gudoomiye faysal si fiican baad u sharaxay waxaan ku yidhi mudaharaadku wuxuu ka dhacaa waddanka uu ka dhacaa gudihiisu ka dhacaa boqol qof konton qof oo dowra soo qaadan kara meel kasta way ka dhacayaan wax alle wax effect ku yeelanaysaa ma jirta way soconaysaa saldhiga iyo nin biwel way soconaysaa si fiican baad u sharaxday laakiin waxaad moodaa gudoomiye intaad sharaxday in leeginaanay ay xukuumaddii dee talada haysay aanay shariixi karin aan ka gudubno qodobkaas waxaa iminka miiska saaran muddo kordhin golihii guurtidu waxay gacanta ku hayaan inay xukuumadda muddada u kordhiyaan ma laga yaabaa in muddadii xisbiyadu ku heshiiyeen in ka badan ay guurtidu kordhiso maxaad se arrintaa ka qabtaa adigu faysal ahaan shalay somaliland hadday dhaafayaan waktigaan somaliland way kala tegaysaa oo baalku ujeeda xagga u jeeda u dhaqaaqaya waxa weeye kordhiskaasi yaanu nimanin waa baaba'a somaliland waa adduunka inaga tegaya inagaa ku kala qaybsan iskuma raacsanin waktigaa la isku raacay waxa weeye in la qabta hadday shacbu yihiin dekeda kuwa ka mudaharaadaya kuwa ku mudaharaadaya saldhiga maxay intay dadka ururiyaan ay u hor joojin waayeen guurtida oo waa cardaqaaga cardaafiya oo bilasha u saari waayeen hadday dadka ka naxayaan dadka ka naxi maayaan heer baa lacag qaatay baa caqligoodu weeye heer baa madaxweynaha weeye caqligoodu waa caqligii somaliland اعتراف كل رئيس سياسي كدي ببريدي شو الاعتراف كلها كحماء هذه بالكحماء هذه رونا قبسانية هنا اعتراف بنا وكلها عقل ما أنت لها عبد الرحمن هم مدحوينه
وكل نكوها سير إنها عقال مدحونا نوعي وكل حمر تجي فوريش فواغي إذا سمعنا المتر تاوي وعقلي الله بيعلني أن أصحاب كسر ما يصنع يسوع عليه حزب الودن يسوع عليه يكون كشرة وعقلي جدا كشرة كيدلي إن قدومي إن إمك واحد شراء مدة لجوه الشيء لح بلوده كلية هيد ودن كان أبار بحسن باكن عضي dad badani waxay qabaan inaan 6 bilood ku filayn macquul ma tahay in sanad iyo bar lagu daro ama 2 sano way ku filantay 6 bilood dalkan sidaas in ku sii jiro hadaan isbedel iman hadaan hoggaan cusub iman hadaan dawlad cusub iman hadaan dad wanaagsan iman ma sii soconay sanad saa kuma sii jirayo dadku u burburaya wax asxaab jirta dalka aan dan ka lahayn oo maalin kasta قص يقبل ثمانية مكا إنه لح بلود وإلا بش الطبنات جوية كواب بدل لح بلود مكا وحنوها روحوية إلا تفضل بلود إنه دورسل ولا إكتتها ولا استيارا كرا أنتي كتم بيس وقت مشوي قص وضني ودك مصيص عنكر لح بلسان وحكيت عن وضني إنه دلك بابيو أم بكرسي بغيره كل مين اللي تسمع أنت كلها حزب الحاكم كلها أنت وحكوا لهين حزب الحاكم ما بتشري حزب الحاكم واحد بس حزب الحاكم هدول شو ما وضعي ما وضعي قصر هذا دول يقرب سينا هاي وصعون حاجة لكن ما أنت الحق قصر يلا جروب حزب ما جروب كان يسكتون تجا وضعي بوي وضعك الدول إن فودك كريرة لكن فودك كريرة ما ينضلك أبسلوت أنا ضلك فودك شعري كان كوك حنا إن قدومي إمك إن بدن واحد سوى دي مدو أرنتي خاتمات ودي دبي واحد كلانتي جراد جامع أو هار جراد ده وجو موقف كذا وملا ذاك التاجنا مركي نقطة أرنتي السومالي لان إن بالوحيابي كوضع هذا الشين إيو هولها خاتم هالكي مريان يشريرك يقدم بيجي بالمحد نوجا شيء كرتا والخاتم هي خير كستوي إيمان يهدى غير اللي تشوتشي خاتم أنا يوم ناكسن رجع سوى ضد نظام له اسمه قال له كلا دمبين له ده يحسب هو في شيء له وإسحاسين وإسقبيالين هو لكن سومان لا روح كبد ما سوى حوي وريش أصحاب وحلا يحجي لنا قال الناس سومان لا نولاد مهربان إن يقولوا نولاد مهربان عقل الملك قاعد أنا هنا يقدي له هنا خاطروا وقتين قال لي كلا بيركي ولا ويرلي وبشد كده على كلا بيركي ما كان ذلك عين كاسي وين يسبدلين هذا أو دورش كان علوي لكن واحد شيء يا غير شيخ صح سياسة عطان عروتي يا دياتو كيسة مشترك عروتي بابينسا سياسة أدوك لما سعطان أدوك هالكم مريها كمارسان قد ياري غيرات هاجن تيجي وحمي تمركيني من حشورين ينتيني من حشورين سودوني من حشورين مروديني من حشورين لقبي وأنت يسوك عايتمس سليا ولا سليا وحنا ومدنا معي إن أقدم بيتي وحلينا هيا إن أقدم بيتي فيصل إن محا هل كان فرهينا إذا مرينا سا إن شعب كسومال لان قد يدي بدبع وحلا شعب الزونا اسكت دايقات كده فكرة وحمانت مسكحيني يعني مسكحيني وخام لقاط المد وناقي حمانتك الصالح وحي كسالي كل شيء كشهر ما يسنى سياسيين الله كركا القبيل كنت هاجن كنت أدرس حكايات وأنا ولي كريم والله وسعر ولي كريم كده مدحويني قاعد كنت حق دوني وحمد الله ويسووا لما رجعت كنت أصحاب طائمة كهاء كل مية ووطنية ويصير كهاء سنة كم هاي وخطتي بل ميك سوي ذلك يسأل غازي الدنيا ما أنت إلي أنا أنا حروح وطني أنا حروح شركات كلها محل قانون شركات دخول محل قانون هذا الحكومة كان وضع حكومة برلمان كي من برلمان وحرقي كاس مركز هذا الوحنا معها ومدنون معها مدحنون معها إذا أين نضل نقلنا أو أين نصير أن كنت في سنة اعتراف بالله أما بدأنا كلك حاجة أنا ولو كان كنت سنة معها
aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Faysal waqtiga aad nasiisana waan kaaga mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay